waad mahadsantihiin Cimraan iyo Ariel TV waraysigan adiga qaadaysaan hadda marka su'aasha ku soo dhawaado Boorama 26 Juun waxa dhacday in dhalinyaro rag iyo dumar isugu jiro reer Boorama ay u dabaaldegeen 26 Juun iyagoo siteen calankii dawladda federaalka Soomaaliya marka waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay dhalinyaradaasi inay caalanka ku dabaaldegaan 26 Juun calankii dawladda federaalka Soomaaliya waxaan isleeyahay waxa keenay saddex arrimood tukuubad waa taariikhda talabaad waa awoodda dalka iyo sida loo qaybsaday ta saddexaadna waxa weeyaan waa adeega ay dawladuhu bixiyaan marka waxaynu isweydiinaa sidee bay marka saddexdan saameyn ugu yeesheen dhalinyartaas inay ay sameeyaan waxaan sameeyaan tukuubad taariikhda waxaan uga jeedaa wadankan waxa wada degan qabiilo kala duwan qabiil kamida qabiilada wada degan dalka ayaa taariikhdiisa la weyneeyaa oo dawladdu weynaysaa oo lagu daray ilaa manhajka lagu daray waxbarashada dawladda Soomaaliland lagu daray gaar ahaan waxa lagu dhigtaa taariikhda foorkan filaya taas waxay keenaysaa dad fara badan inay arkaan dalka in laga leeyahay oo taariikh dad gooniya oo taariikhda sanama oo dad gooniyo oo qabiil Soomaaliland diga gooniyo in la qarameynayo oo laga dhigayo taariikh qaran laga dhigayo xaqiiqdu waxay tahay taariikh qaran maaha oo waa taariikh u gaara qabiil gaara marka taasi waxay ku keenaysaa dhalinyartiina u fahmaan dalkii in markay noqoto xagga taariikhda in dad gooniya la weyneenayo in dad gooniya la sharfayo oo iyaguna ay taariikhooga ay markaa muhiim ahayn taasi markaa waxay keenaysaa saluug xagga taariikhda ay keenaysaa talabaad markaad eegto dalka awoodiisa sida ay u qaybsan tahay hay'adkii markaa waaweynaaye dawladnimadu ay ku taagneed fulinta iyo baarlamaanka iyo maxkamadaba intaba hadaad eegto xukuumadda hadan ku horeyno dhammaan wasiirada wax u badan dhinac u badan yihiin oo dhinaca dhexdaas u badan yihiin agaasimayaasha guud dhexdaas u badan yihiin madaxda hay'adaha madaxa banaan dhinacaas u badan yihiin marka halkaana dadku waxay arkeen deeli fara badan oo xaqii xilalka oo meesha yaala arkeen taas marka waxay ku keenaysaa inaanay dalkoogi jeclaan ayna wixii kale ku kici karayaan ay sameeyaan hadda eegto baarlamaanka waxa weyn 28 buka kooban yahay hal qabiil oo dhexdaaba ya 62 kamid ah kuraasta ku fadhiya wax ka aragti duwan iyo wax kale meesha ka socon karaana ma jiraan tusaale yar hadaan ku siiyo 2020 waxa jirtay mar xildhibaanada reer Awdal iyo kuwa bariguba ay ka baxeen golaha ay ka baxeen looma joojin waayo golaha waxay ka yihiin waxaan gaareen bil xalaad marka taasi waxay keenaysaa in dawladnimadii markay noqoto xagga golaha in aragti gaar inuu ka shaqeyso ta dhexda oo sida iyagu saami qaybsiga iyo power sharing ay u yaqaanaan ay ka jirto haddaad maxkamadda eegtana gudoomiyaha maxkamadda waxa weyn waa dhexda marka waxaad arkaysaa awoodii dalka oo dhan qolada dhexda ay gacanta ugu jirtaa haddaad eegto ciidanka iyo saraakiishoodu qolada si dhexda ugu ay gacanta ugu jirtaa tan marka waxay ku keenaysaa dhalinyarada inay arkaan inaan dawladii loo sinayn taas marka waxay keenaysaa inay calankay doonaan ama ka Yuhuudda ama ka Soomaalida ama ka doonaan ku dabaaldegi karaan qodobka ugu dambeeya waxa weeye dhalinyaradan wax dawlad u qabataa ma jirto dawladda waxa laga doonayay inay waxbarashada caafimaadka biyaha iyo leerka inay adeegyada bixiyaan sababtoo ah cashuur bay qaadaan cashuurtaasi marka waa ama cashuur bariya qaadaan oo cashuurta laga qaado gawaarida iyo baabuurta iyo jidadka iyo talaqaada ama tan kale cashuuraha badeecadaha dibadda qofku waxa uu xirnaya waxa uu cunaya iyo waxa dawadiisa iyo waxa soo dhan la saaro iya laga qaada haddana caruurtaasi ma helaan adeegyada soo tiriyay waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo biyihii iyo leerkii kuwaas marka waxay keenayaan inayna qaran ayna arag calankiisa ay u dabaaldegaan kan ay ku hoos nool yihiin maadaama inta aan soo sheegay iyo saluugyadaasiba ay jiraan inaana isagana kaaynan uga duwanayn oo ay arkayaan inta waxaan ku darayaa shalay waxa soo baxday in la magacaabay nin abwaana oo magac weyn ku leh Soomaaliland oo la dhahdo Yuusuf Shaacir in dawladda Soomaalidu ay xil u magacawday kadib waqti yar kadib isaga la wareystay wuxuu sheegay in dawladda Soomaaliland ay waxba u dirsan weyday cidii kale wax u dirsatana oo shaqeynayo waxaan la yaabanahay markaa
buuramana waxa lagu xiray gabar degan miiraash la yiraahdo oo calanka Soomaaliyeed ha gubina tiri يعني waxay gabadhaasina qarandimus noqotay loo xiray ninka abwaankiina aanu qarandimus u hayn taana waxa weydiinayna dawladda Soomaaliland ba weydiinayna hadaba hadii sidaas ay jirto dadkan waxa lagu leeyahay aanu garan maayo oo waliba buurama markay noqotana si gaar ah moodaaba in loo eegayo waxa halkan ka dhaca iyo waxa deegaanada kale ka dhacaya waxa weyn aad u kala duwan halkan dareen gooniye ba yaala inan taayir calanka qaadatay tiraha gubina inama kala inamadii habla calan ku dabaaldegay waxa ciidan iyo RRU la keenay wada yaabaysa marka hadda iyadoo dadka ayba kooban yihiin ba marka waxaan sameeyay oo intii kale dalka iyo dawladnimadan hoos joogtay ayna waxba dhibaato sameeyeen haddana waxa la yaabaysa waxa soo ciidan iyo waxa soo hawla waxa meeshan loola soo dooranayo marka niyow waxa weeyaan wax dawladda Soomaaliland iyo aqoonyahanka iyo dhaqanka iyo dadka waxaan farayaa waxaan u sheegayaa war waxaan arinkan arin waa dib la isaga noqdo hadii kala sidan aruurta iyo anagu waa raacinay sida wax laga bedelo